dardaarankii Anas ayaan idiin akhriyaya. Very, very powerful. English iyo Somali baan in case kuwa dadka aan English ka fahmaynin ugu akhriyi doonaa. Allah ya arhamar rahimin. What a beautiful soul. Only 28 years old. 28 jir. Way ahead of his time. Kulligood waa sida this is my will and final message. Anas al-Sharif. Kani waa dardaarankayga iyo fariintaydii ugu dambeysay. If these words reach you, know that Israel has succeeded in killing me and silencing my voice. Fariintani hadday idin soo gaadho waxaad ogtihiin in ay Israel ku guuleysatay dilkayga codkaygiina ay aamusiisay. First, peace be upon you and God's mercy and blessings. Marka hore, nabad iyo naxariis ta Ilaahay ayaan idin soo gudbinayaa. God knows I've given every effort and all my strength to be a support and a voice for my people ever since I opened my eyes to life in the alleys and streets of Jabalia refugee camp. My hope was that God would have extended my life so I could return with my family and loved ones to our original town of occupied Asqalan al-Majdal. But God's will came first and his decree is final. Si walba waan isugu dayay oo aan ku dadaalay marna kamaan daalin kamaan caajisin inaan codka dadkayga soo gudbiyo oonu dadaalo ka sheekeeyo dhibka la gudboon ilaa maalintii aan garaadsaday wadooyinka Jabalia refugee camp luqluqyadeeda aan bilaabay inaan maro. Ilaahay mar walba waxaan ka baryi jiray inuu Ilaahay nagu celiyo magaaladeedii aan u dhalanay Asqalan al-Majdal. Rajadaydu mar walba saasay ahayd waxaase ka soo hormaray Ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa oo ah isagu kama dambayn. I have lived through pain in all its details, tasted suffering and loss many times, yet I never once hesitated to convey the truth as it is without distortion or falsification, so that God might bear witness against those who stayed silent. Ilaahay wuxuu og yahay inaanan waxna ku darin waxna ka reebin oo aanan ka daalin oo aanan been ku tidcin oo ku darin wixii aan wararkii aan soo gudbinayay. Ilaahay baana markhaatigayga ah. Ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu isagu la xaalo kuwa ka aamusan dhibkayaga iyo xanuunkayaga iyo dilkayaga, kuwa qalbigoodu dhaqaaqi waaye, kuwa ciilidayada iyo xanuunkayaga iyo dhibkana lagu hayo qalbigoodu ka diiri waaye. And those whose hearts were unwavered by the scattered remains of our children and women, doing nothing to stop the massacre that our people have faced for more than a year and a half. Waa markuu dardaaranka qoray. June buu dardaarankan qoray. Kuwa caruurtayada meydkooda meel walba ku firirsan, hilibkooda ku firirsan yahay ka diiri waaye. Ilaahay baan ku reebay kuwaas. I entrust you with Palestine. This is the deepest part of it. I entrust you with Palestine. Waxaan idinku aaminay Palestine, the jewel in the crown of the Muslim world. Dheemanka ama dahabka Muslim world. meesha ugu caaqibada badan Muslim world. Caalamka Muslimka. The heartbeat of every free person in the world. Wadnaha iyo qalbiga digta qof kasta oo dunida ku nool oo xor ah. I entrust you with its people, dadkiisaan idinku aaminay, with its wrong and innocent children
who never had the time to dream or live in safety and peace. caruurteedaan idinku aaminay aan weligood helin fursad ay ku riyoodaan oo ku helaan himilo oo ay ku riyoodaan oo ay ku noqdaan caruur ayaan idinku aaminay iyo dadkeeda. Their pure bodies were crushed under thousands of tons of Israeli bombs and missiles torn apart and scattered across the walls. Jidhkoodii yaraa ee miskiinka ahaa, hilibkoodii yaraa. 1,000 tons, kumayaal dee culayska bombska Israel ay markay ku dhacaan sidaa meel kasta ugu shaandhaynayay ee hilibkooda ugu firdhinayay. I urge you not to let chains silence you, nor borders restrain you. waxaan idinkula dardaarmayaa ha ogolaanina in silsiladuhu idinkala hayaan oo idin aamusiyaan iyo in bordersku idinkala xejiyaan oo idinkala reebaan. Be bridges towards the liberation of the land and its people until the sun of dignity and freedom rises over our stolen land. noqda bridge-ka ama xuduudka xoreynta ilaa iyo inta qoraxda xorriyaddu ka soo baxayso ee ay helayaan sharafta iyo cisigii ee ugu soo noqonaya sharafta iyo cisigii xorriyaddu dhulkayaga la xaday. I entrust you to take care of my family. I entrust you with my beloved daughter Sham. waxaan idinku aaminay inaad qoyskayga ilaalisaan, caawisaan. waxaan idinku aaminay inaad gabadhayda aan adduunka ugu jeclahay, my beloved daughter Sham, the light of my eyes, oo ah nuurkii indhahayga, whom I never get the chance to watch her grow up as I had dreamed. aanan fursadda u helin inaan koriyo oo ay weynaato. I entrust you with my dear son Salah. wiilkayga Salah baan idinku aaminay idinkaga tegay, whom I had wished to support and accompany through life until he grew strong enough to carry my burden and continue the mission. aan jeclaan lahaa inaan koriyo aan arko isagoo nin weyna oo iga reeba aniga culayska igala hadha. I entrust you with my beloved mother, hooyaday baan idinku aaminay, whose blessed prayers brought me to where I am. hooyaday ducadeedu isoo gaadhsiiyeen meesha aan joogo maanta, whose supplications were my fortress and whose light guided my path. ducadeedu ay ixafiday iyo ilaalisa ee waddada ii iftiimsan. I pray that God grants her strength and rewards her on my behalf with the best of rewards. ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala siiyo adayg iyo samir markay noqoto nacam waqtigayga markaan anigu tago. I also entrust you with my lifelong companion. waa 28 jir lifelong companion. maxaa iyagoo caruuray meelaha isguursadaan dadkani because way ogyihiin ayaama their days are numbered. waxaan kaloo idinku aaminay gabadhayda, my beloved wife Uma Salah Bayan, from whom the war separated me from many long days. oo dagaalku na kala kaxeeyey dhowr jeer na kala xayiray, yet she remained faithful to our bond, steadfast as the trunk of an olive tree that does not bend. Allahu Akbar. way sugtay yad way sugtay way adkaysatay sidii olive tree. ma garanaysaa the trunk, gunta olive tree-ga oo aan la jebin karin. ilaahay bay aamintay, ilaahay bay igu aamintay, ilaahay bay igu jeclaatay, ilaahay bay la sugtay. I urge you to stand by them, to be their support
after God Almighty. waxaan idinkula dardaarmayaa inaad barbar istaagtaan ilaahay ka suko. If I die steadfast upon my principles. haddaan dhinto waxaan dhintay anigoo nacam ku dadaalaya aan marna ka magaranaysaa dhimin waxaan rumaysanahay. My principles sharaftayda iyo karaamadayda. I testify before God that I am content with his decree. waxaan halkan idinka sheegayaa idinla wadaagayaa inaan ku faraxsanahay oo ku qanacsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala qadarkiisa. Certain of meeting him. waan sugaya waan ku kalsoonahay inaan la kulmi doono. And assured that what is with God is better and everlasting. waayo waxaan ogahay waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa yaallaa inuu yahay wacan yahay. Oh God, accept me. intana ugu sii saarsan. Oh God, accept me among the martyrs. Forgive my past and future sins. ilaahow aqbal jihaadkayga oo saamax dembigaygii hore iyo kaygii dambeba. And make my blood a light that illuminates the path of freedom for my people and my family. oo ka dhig dhiigayga mid iftiimiya dawga xorriyadda dadkayga iyo qoyskayga. Forgive me if I have fallen short. isaamax if I have fallen short. nacam haddaan nacam ka guul daraystay hankii iyo himladii aan lahaa. Forgive me, isaamax. And pray for me with mercy. si fiican igu duceeya please. For I kept my promise and never changed or betrayed it. waayo ballantaydii waan ka soo baxay. waan ku dadaalay inaan ballantaydii ka soo baxo oo aanan khiyaamayn, aanan bedelin oo aanan khiyaamayn. Do not forget Gaza, ha ilaawina Gaza. And do not forget me in your sincere prayers for forgiveness and acceptance. hana ilaawina inaad ii ducaysaan mar walba in ilaahay aqbalo oo isaamaxo. Anas Jamal Al-Sharif 06/04/2025 kii boqor. That was powerful.